تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله soo dhawaada walaashe soo dhawaada videoganet waa Monday motivation isliinta dhiirigelinta wayaan soo dhawaada meel badunka joogto waxaan rajeynaa waqti wanaagsan ay ku tahay soo dhawow hayga iloobina like siisid haday igu cusub tahay subscribe ku soo bir channelka insha Allah soo jeedin saacada halkaas inta xogaa idin ku dhaweeyay waxay ahayd 7:20 daqiiqo adiga 7 barkan iska leenahay ma arkin video inta la diyaarinayo shaqadiisa iska qabtaa anyway 7:30 evening ka ahayd xaajiga caruurta waxay aadeen banaanka qaarkoodna waa wada maqnaayeen anyways so I decided ashada maadaama rabinaan kariyo waxaan dhahay video ka duub dhiirigelinta hopefully inay dhiirigelin noqoto abaayasha ana waxaan jeclahay runtii guri nadiif aan jeclahay laakiin sometimes haddii guriga looda joogo ma suurtagelayso waxa waaye dadka meelaha fadhiyo caruurtiya game ciyaaris whatever disturb laguma sameyn karo laakiin maadaama ay banaanka aadayeen anigana waxaan dhahay you know what ma aaday banaanka san dhiirigelintan videoganet on duubto alxamdulillah waxaan idhaahday cashadeedan sameynaa usually waxaan ka jeclaan lahaa inaan runtii raaco aan la lugeeyo ama bicycle ride-ka aan raaco bicycle qabsado aniga naftirkayga but waxaan ka jeclaaday asxaabteeda igu xiran inaan dhiirigelintaneeto Monday motivation noo duubo alxamdulillah inay ii suurta gashay saa arki doontiin saacadda waxay igu qaadatay 7:30 عمل اسكالينا موقتها 7:30 لا iyo 8:30 inta nadiifinaay barsada meel baan nadiifiyay cuntada sii jarjarto waa sii diyaarsaday video badan kama duubin laakiin waxyaalaha waxaan tusinayaa insha Allah waa arki doontiin hadhowti video yadan inta aan duubo video badan aan duuba runta hadaan idin sheego and then waqtiga ima suurta gasho aan editingkii waxa sidta sameeyay ay ku soo dhajiyo waan ka xumahay hadda igu cusub tahay fadlan subscribe hadii aad walaalahay igu xiran tahayna sii share garay like iyo commentiga idinka dhicina waa anyways saa u jeedin shaqadan qabanayo waa shaqo fara badan okay anaga video markaan ku dubay 2 weeks ago wayaan videoganeto waxaan kula sheegnaa waxay tahay ilmaha shaqooyina u dhibaa but shaqooyinka si run ah uma qabtaan so mar walba waxa waaye inaad daba socotid waaye adigina shaqadii inaad once a week amal adiga gacanta ku qabatid runtii meelaha qaarkood ma fiiriyaan caruurta ma fiiriyaan kuraastooda ma vacuum gareeyaan ma xaqayaan xaqinka xataa wax lagu marinayaa dhinacna la marinayo maadaama hadda cardboard sano oolin oo aan dhulkii caadiyaas noo yahay waxa waaye habeen walba in la xaqo waaye ma kula tahay in xaqaan ma xaqaan waa gambiyaan so aniga le markaan sameeyo runtii waxyaalahan soo jijida moogiye ayaga waxay sameeyaan ben ilaahay iska daayo caruurta ilaahay noo wada daayo laakiin runta hadaan idin sheego waxa weeyaan shaqo fara badan weeyaan shaqo yar ma aha gurigan markii lagu badan yahay way sii badanaysaa shaqada so jadwal sameyso maalin saano kale xoog u geli inaad qabsatid so soo dhameystiray barsadii but barsadii kaliya maan ka shaqeynay runta hadaan idin sheego jikadana ka shaqeynay also inkastoo jikada wasaqaysan ahayn laakiin waxaan ka wada alaabtii cuntada sii jarjaranay waxaas oo dhan so in tusinaya bataatiga mar walba markaan videosha aan sheegay waxaan dhahaa bataatiga si dheer dhudhuuma u jira so maanta alxamdulillah aan soo xasuustay oo ku dari doona soo jeedin saacada 7:20 bilownay 7:20 and 8:25 no waa dhameystirnay nadiifintii iyo wax jarjaritaankii kuraasta xagga usoo wareejiyay dhinaca kale ahay markii hore waa aragteen maleynaa dhinacan usoo wareejiyay because space ka saan xoogay u baahneen because ilmihii waxay isticmaalaan geedka xunka la dhahayo maxaa la dhahaa oo korontada ku socdo hoverboardka sometimes meelaha ku wataan wajeedin carbon malahan so it's easy to clean ilmihii the boring bay waxay ku noqdeen guriga gudihiisii so wax lee in la sameeyo waa guriga loo ogolaado
العشاء واتنا أن سيدي أرصدي chicken legs بوها spice كيس وحسي سي مرسن usually ما كان سوق تان سيسا ميا لكن ما أنت سيتوحي هاد رنتي chicken ما أنت سوق بتاعي هاد ما أنت فيديو كانت إدين توغايو ووجدين بطاطي جينا بيه وحي ديار إيسيهين بيه كلنا ولي بقول دقي سو حغاير أسي جلعة ماركينو ماركان شي لسو رخصة يوكو بسلادو frozen vegetable كان عادي أنا أجعلها هاي ما حكو جرو وجدين waxyaalo fara badan ku jiro anyways ma soo koobi kari waxa waaye Costco ka soo gataa spices waxa dhan hal mar ku wada shubaa macal saliidi badan saliid kale meesha ku shubaa si u shimato lemon pepper season kana igu cusub cuntada wuxuu ka dhigay dhadhan kale extra u yeelay so waan ka helay Walmart-iga waa brandkiisa xataa bacdiis xataa wali ka bedel halfway si marona spices igu cusub u noqday marka garlicina waxaan samaystay frozen kan gashtay intaan bac ku fidiyay baan intaan midida saas ugu jarjar camal maaragtay aan freezer ka saxan la geliyay markuu iyaadkaadana waa kala burburiyay ziploc bag aan geliyay soo jeedin quruxda ku soo baxay waan shilshilay leh cabaar yar markuu xoogaa yar aan isdhaw websil yahay saxan ku gadistay now batati aan ka shaqeynaa batati waxaan idin sheegay saan way kala waaweyn yihiin saas kala waaweyn ku yimaadaan si fiican u dhaqayaa saas tahay si fiican u dhaqay waxaan isticmaalaa xataa scrubka oo dishka lagu dhaqaan ku xoqay wasaqyada meelaha kala jiro dhan badan markaan jarjaro waxaan u jaraa saas waxaan u jaraa waxay tahay inaan arko wax wasaq ah wax madow ah gudaha batatiyada qaarkood hataa kuuskiisa ku wada karisid uma jeedo waxa gudaha ku jiro soo dhowr jeer aan inta kariyay baa waxaan ku arkay gudihiisa inuusan ash ahayn soo waan nacay marka waxaan ka jeclaa inaan saa u sameeyo saan marka u jarjarana dhaqdid mar labaad ka dhaqayso arki doontaa waxaan sinaa maanta mar labaad kala dhaqay xataa dhiiqadii wasaqdii because waxaan wax dhulka ku horay soomaha wali wasaqa ku jirto soo waa ina dhowr jeer biyo raacisa and then biyo qandaca ku dhigaya kuleel biyo kuleel ku dhigaya inta biyaas iga qabo waxa inta wax kala sii sameysanayo waay waxaan sameysanahay spices kiisa wixiisan asaga sidoo kale aan vegetable ka yaala camal aan yeelaya and then waa ku gedinaya I don't think aan video badan ka duubay waxyaalaha waxaan keenay waxa waaye runtii aniga chef inta ma ihi moogtahay qof maaha cuntooyinka soo deysmay waxaan la shargaystaa waxa waaye lifestyle nolosha hooyo aan rabaa inaan aan kugu dhiirigeliyo hooyooyinka inay ka faa'iideystaan ama ay dhiirigelin ama ay fikrado ka helaan so that's why aan cuntooyinka badankood aan jeclayna detail si dhaxgalo because macluumaad fiican ma yihiin moogta si fiican u sharxi aqaani marka waa isku dayaa inaan cuntada xoogaa yar gabdhaha dhalinyarada ama gabdhaha maaragtay cuntada fudud jecel aniga misas cunto fudud ayaa la dhahaa ma jecli cuntada haddii qaadanayso wax fara badan saacado fara badan haddii cunto la karinayo wallahi waa necbaa beenid ma sheegay cunto karis iyo shaqada guriga waa necbaa laakiinse choice malihid nolosha kamid part of the life weeyaan bariiskaygan saa u karsaday hore in kula shargalay dhowr jeer video yaal hopefully na video ku dhajiyo ayda meesha ka soo baxo waxa waaye just bariiskayna cadka ah caadiga ah waaye oo vegetable lagu karinay haddii oo wax yar aan ku sharaxo basasha shiilaysa qudaarta shiilaysa frozen vegetable ko yani frozen vegetable kan jeclahay it's easier ka bacdina bariiska ku daraysaa biyo kulul biyo karkarayaan ku darsadaa qiyaas saxan inuu ka bato maaha indana waa daboolisa that's it soo jeedin jikadii alaabta dhan dhinacaas isaga wada riixay waxa waaye shaqo fududeys la dhahaa shaqo fududeys qof kala shaqadaas qabanayo waa af carabi ah counterkayga meelahay waa iska sii nadiifiyay so salaada isku diyaarinay maqribaan tukanaynaa ka bacdi Canada waqtigeedu waa aad iyo aad bay late u tahay maqribka ilmaha markay maqribna la tukadaan ka bacdi cashayaan ka bacdi toothbrushkooda waxooda ka bacdi waxay tukadaan cishaha ku yararka oo salaada lagu lahayn salaadooda cishay tukadaan and then bedtime wayaan before 10 o'clock because cishaha aad u late u yahay so anyways cashadeen quruxda badan saan ku soo baxday maalinteeda quruxda badneed saasay ahayd saan arbina kugu dhiirigeliyo hooyo waxa way waqti badan ma qaadanayso I think saacadina ku qaban doona ama inaan kamarada I'm not sure maqribkeen noo soo galay markaas aan tukanay ka bacdina saacadan ku qabtay and then halkaas aan ku dhameystiray so haygi loobin haday ku cusub tahay kusoo dhawo channelka subscribe like share kusii noqo gadaal ugu noqo video badan ka buuxa channelka insha Allah doo rabino waxaan rajaynayaa inuu ku dhiirigeliyo fikradaha ka hesheed la siis wadaag hal qof baa noqotay si share garay insha Allah doo rabino أنا خير إني بدرجنا يا وإنه فيديو قدام بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمساب سي فيديو باي